injineer Faysal Cali Waraabe doomiyaha xisbiga ugu da'da weyn xisbiyada Somaliland ee UCID oo waraysi gaar ah telefishinka Ariel ku siirayay magaalada Hargeysa ayaa ugu horeyn waraysigaasi kaga hadlay safar uu in muddo ku marayay gobolada bariga Somaliland. dhulka aanu marnay dad iyo xoolo midna maanu arag lana waxay dad xoolo way dhamaadeen dadkan waxay ku jiraan xiriyo ku jiraan tuuladii kasta ee dhulka ka sameeysan waxa ku jira dhowr xero ku aqxeeran oo boolal ku jiraan ilaa 300,000 qof ayaa marka eega Somaliland ay marka caydoobeen xoolahan oo magaalooyinka tuulooyinka dul degay 300,000 ilaa 60 waa caruur 180 oo caruura ayaa maanta aan cuntada haysan shelter haysan ay galaan biyo haysan sanitation jirin tacliin haysan dadka ilaahay moojaan wax u maqano kana ma jiro dawladina waa ogtay tamarteena dawlad intaas capacity qaadan hana karta maaha adduunka xumay weydiin adduunka maanta ma oga dadka marka halka diila weyn baan ku soo arkay xaga kale waa nabad sool oo maalintii hore aynu doorashada bilownay kaar qaadashada ay ahayd ilaa 50% ay ahayd nabadgelyo maanta ilaa 85 sool waa nabad aad iyo aad bay u fiican tahay alxamdulillah. injineer Faysal Cali Waraabe oo telefishinka ku weydiiyay bal halka uu marayo wadahadaladii u dhaxeeyay Khaatumo iyo Somaliland waxa uu walaac ka muujiyay wadahadaladaasi oo uu sheegay in xukuumaddu kaga mashquushay u ololaynta waa sida uu hadalka u dhigay musharaxa madaxweyne ee xisbiga Kulmiye Muuse Biixi. baylaha ma ka mitay baylaha badan gees kasta every sector gees kasta baylaha baynahay meel aan isleenahay meeshaas maanta ka fiyo qabtaan oo leen halkaas shaqaynaysa halkaas guul laga gaarin ma jirto dadkayna guul laga ma gaarin beeskii aan bixin guul laga ma gaarin xulfadu qaadna beel laga ma gaarin meel Allah ya meel noo fiyo ma jirto meel alle ma jirto because waxa weeye there's no function in government function in government ma jirto waxa lagu mashquulsan yahay campaign dawladda Muuse ku qalsantay dawladda Muuse leeyahay hadhow ka ridiyaan wasiirnimo ku diiday ay garab yaacaysa marka dawladdu shaqaynay iyo dalka u shaqaynay iyo wax fulinaya ma wax sidaan aanu waxa ma dhowran karayo haddii aan waxaan la joojin dahab kala jira dadka shacabka soo bildhigna walaal warmeeshi hal isku yimaado haddaan dawladdu shaqada qabsan weydo oo ka hadhaweydo campaign ay ka hadhaweydo oo dalku saa u baylaho talan hal isku yimaado. mudane Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID waxa uu jahawareerka ka taagan golaha wakiilada ku eedeeyay inay dabada ka riixayaan xisbiga wadani waxaanu xisbigaasi ugu baaqay inay xaaladda golahaasi ka daayaan. injineer Faysal Cali Waraabe oo arinta ka hadlaya waxa uu yiri xaaladda waxa weeye nasiib dara weeye inay maanta wadani inagu bilaabay igama qoranto عادة ما نقول موقت عشان يستيت ما لقى هذا هني أنا قتيت نبغى ويسكه هنيني سير أود عدو إلهي بوجا لكن هو حن دقة كينه هين أيوه هو ده نقول صعب لا ببدأ حوينه لا رئيس البرلمان الباب كاسدو نقول فنو خطر بس الحمد لله هو قونين هذا أنا هم بليان نديني ليري جودين اسكون نقطة waxaan jecelahay guddidaasi inay aqli ka shaqayso oo si nidaam leh u nabeyso oo adduunka oo dhan wax leeyahay dadka kale war waa maxay labadiina ra'iisul baarlamaan ee meesha jira labada gudoomiye soo birita laba madaxweyne soo bixi maayaan marka arintaas waxaan leenahay hal dhameeyo hal isku tanaasulo waa la isku tahdiyeen in la soo celiyo tema waxa lagu murmaa bahasha marka aan la tahriidin ayaa la ilaa waa ka imaka muu tahriidin kale ila Raila Odinga muu tahriidin milyan baa la dheersay wixii ma ogoli markaas la bahasha laakiin waan heeyo dad saqdaxan ka ciyay sidii dadkii dhuumanaya terroriska saqdax iska soo qaban jiray magaalada saay inta gud madow galan iska soo qaban jiray fiidiyowga Cabdiraxmaan aad baan ku xumay Cabdiraxmaan talin leh inuu nin sharaf la waa dhowr jeer waan sheegay in waan ogeey ragga waxa ku kala fogaan karana waraag u muuqdaan dalku u muuqan يا فعل ماشي وقلي يا هيبة كحمة وقلي أيام ماشي استعمالي
mudane faysal cali waraabe waxa uu si gaara ula hadlay musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi waxaanu yidhi muuse waxaan leenahay muusow iska reeb ilaa waxa socda dowladii hoose loo gobolgobolkii hageesaa socda oo garab ordaya ilaahay ku dhaaray dhiijyadii baad garab ordaya wasiirri baad garab ordaya wasiir dowlad garab ordaya yaanu ma garanayo waxa nidaamkaas meel adduunku ka jiro ma garanayo haddaad tiraa waxaan eriyaya wadani aan eriyanayo wadani hadduu boqol kulcay ku dhacaysa ugu dambayntii waraysigan uu telefishinka Ariel siiyey injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu kaga hadlay guddiga doorashooyinka oo uu sheegay in awoodihii ay lahaayeen xukuumaddu aanay siinin waxaanu Faysal Cali Waraabe intaasi raaciyay labada xisbi ee wadani iyo kulmiye ee ololaha wada waasida uu hadalka u dhigay injineer Faysal Cali Waraabe komishanku ay wax ka qaban kari waayeen ciidan ay arrintaasi u direen ay xukuumaddu ku hor istaagtay waa sida Faysal Cali Waraabe yiri wuxuu qabtay wasaaradda dawladda gacan siineen ciidamadii iyaga ilaalinayay ayana xitaa amarka siin kareen waxaan ciidamada iyaga la siiyay iyagu amar ka qaataan maanta dawladda calaamada soo dejiya magaalada kulmiye askarta way diiday kuwii kalena wadooyinkii bay xidheen haddana maanta la isku dhicin ciyaar gaaba nasiib baan lahayn marka komishanka waxa ugu kalsoon waxa weeye dawladda hadaan kalsooni siin la shaqaynin inay dawlad ma waxa implement gareynaya dawladii tiri dhiiji dama kaxayn ma ayaa dhiiji baaburti wata dawladii tiri waan kala hadlaynaa wasiirada ayaa wasiiradii hor kacaya marka waa foolxumo weyn baa ka jirta foolxumo weyn baa soo socota haddana arrintaa la joojina dee waxaan arkaynaa inuu dagaalku meesha wax ka soco qasaacayo degsi kale uga wareegi shacbigaanu talada u oran doona kaala qabsada talada magaranaysaa labada xusbi labada xukuumi waan yaabsan markuu cir leeyahay waxaasaan samayn doonaa imika uu ku jiray dawladda saddex bay ka koobanto midna waxa weeye waa executive-ka midna waa sharci dejinta midna waxa weeye sharci sameeya waa loo meekariski ka mid ahaa inuu isagu wixii aan jirin sharci sameeyaheed lama arag qof dawladdu ka mid ahaa isaga kule waxa maxaa loo sameeyey muxuu ka mid yahay muxuu sameyn waay speakerkii baa labadaa nin waxay sameynayaan oo aragteenoo Batri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa.